loogu jiro sidii dekad loo heli lahaa ayaa ka socda mid ka mid ah meelaha aysan u badneen inuu ka dhaco dunida waana Soomaaliya. iminka waxa uu abuuray halgan dhinaca gobolka ah oo u dhaxeeya Sacuudiga iyo Imaaraadka oo dhinaca iyo Qatar oo Turkiga taageero ka helaya oo dhinaca kale ah. arinta xudunta oo ah maahan oo qurabiyaha saxmada badan ee Soomaaliya laakiin soo deganaanshaha mustaqbalka wadanka qudhiisa. 10 sano ayay dagaal ka socdeen Soomaaliya ilaa iyo dhowrkii sano ee u dambeeyay markaas oo ay halgan u gashay inay soo jeedato maalgashi shisheeye laakiin saxifaaltanka ka socda ganabiyoodka Carabta ayaa saameyn xoog leh ku yeeshay Soomaaliya. dekadaha sanad ka hor shirkad la leedahay xukuumadda Imaaraadka Carabta ayaa heshiis ku kacaya 336 milyan oo dollar saxiixday kaas oo lagu ballaarinayo dekada Boosaaso. muddo sanad ka yar xilligaasi ayaa shirkadiyana laga leeyahay Imaaraadka waxay la wareegtay gacan ku haynta dekada Berbera waxayna ku yaboohday 440 milyan oo dollar oo lagu horumarinayo. bishii Maarso Itoobiya ayaa qayb laga siiyay dekada Imaaraadka iyo Bahrain oo isu gaashaan buuraysanaya Soomaaliya. isla waqtigaasi Turkiga oo gacan saar leh Qatar oo ay sahayaan Imaaraadka ayaa Soomaaliya ka waday maalgashi ballaaran balaayin dollar ku kacaya. shirkad Turkiga ayaa maamuleysay dekada Muqdisho tan iyo sanadkii 2004 iyadoo shirkado kale oo Turkiga ay dhiseen jidad iskuule iyo isbitaalo. xafaaltanka waxa uu aad u sii xoogaysay wixii ka dambeeyay June markaas oo dalalka Carabeed ee awoodda leh ee Sacuudiga uu horkacayo ay badankooda xiriirkii diblomaasiyadeed u jareen Qatar ayagoo ku eedeeyay inay taageero Iiraan mintidiinta Islaamiyiinta. cadaawahaasi waxay sare u sii qaaday damaca gacan ku haynta geeska Afrika iyo biyihiisa sida ay sheegayaan diblomaasiyiin ganacsato aqoon-yahano iyo saraakiil Soomaaliya. Soomaaliya waxay aad ugu dhowdahay marinada muhiimka ah saliidda dekadaheena waxay adeegsiin karaan Itoobiya oo aan dekad lahayn ayna ku nool yihiin ilaa 100 milyan oo qof. dalalka khaliijka waxay muddo qarni ay xiriir ganacsi mid diineed bal leeyihiin Soomaaliya laakiin xiriiradaas waa kuwa samada ku laalan bacdama ay xafiiltamo cusub soo baxayeen. Soomaaliya waxay dhexda u gashay dadaal la doonayo in lagu ballaariyo saameynta ganacsi iyo tan military ee xeebta sida waxa yiri Rob Mali gudoomiyaha hay'adda caalamiga ee xasaradaha waxbarashada iyo gargaarka bini'aadanimo. Sacuudiga iyo Imaaraadka waxay soo taraysaa oo eegayaan xeebta Soomaaliya, Djibouti, Eritrea oo ka xiga waqooyina waxay u arkayaan ammaanka geestooda galbeed sida laga soo xigtay diblomaasi reer galbeed oo howlgalka geeska Afrika wax ka wada. Qatar iyo Turkiga oo maalgashigooda u yaala meel ka soo Muqdisho waxay diiradda ku hayaan taageerada madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo isaga iyo agaasimihiisa madaxtooyada. waxaa Soomaaliya gudaheeda iyo diblomaasiyiinta reer galbeed ay aad ugu arkaan inay daacad u yihiin Qatar kadib markii ay dhaqaale ka heleen ololihii doorashada ee 2017. sargaal reer Qatar ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in Doha ay 385 milyan oo dollar ku bixisay kaabayaasha waxbarashada iyo gargaarka bini'aadanimo ee dawladda dhexe. wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducale Beyle ayaa taasi ku raacsan gobolka Khaliijka lacag badan ayaa taala haday doonayaan inay maalgashadaan gacmo furan ayaan ku soo dhaweynaynaa ayuu yiri laakiin waa su'aal in laga soo galo irida saxda ah. xukuumadda federaalka ee Muqdisho waxay inta badan isfahmi la yihiin Puntland iyo Somaliland waxyaabaha u dhaqantaa sida dal madax bannaan waxayna muddo sanooyin ama baadagoobaysan ka go'do Soomaaliya laakiin se kuma guuleysan aqoonsi caalami ah. saameynta dhaawaca leh muddo laga joogo in ka yar 10 sano ma jirin wax ganacsi oo laga lahaa Soomaaliya. taasi waxay bilowday inay isbedesho sanadkii 2011 markaas oo Al-Qaacida oo taageeraysa Al-Shabaab ay dib ugu gurteen Muqdisho. bilooyin kadib markii Turkiga ayaa waxa uu bilaabay gargaar wax looga qabanayo gaajada taasina waxay irido u furtay mashaariic ka dhigay Turkiga inuu noqdo maalgeliyaha shisheeye ee ugu weyn Soomaaliya. xukuumadda waxay rajeynaysaa in maalgashi cusub gaar ahaan dhinaca kaabayaasha kuwaas oo gacan ka siin kara wadanka dhinaca dib u dhiska. hanaan canshuur qaadid oo hufan waxa uu sare u qaadi karaa dakhliga xukuumadda laakiin taasi waxay dabooli kartaa oo kaliya mushaaraadka shaqaalaha dawladda. dhaqaale aad u badan ayaa loo baahan yahay marka laga hadlayo wadooyin iskuule iyo waxyaabo kale ee daruuriyaadka. dalalka bariga dhexe iyo hay'adaha khayraadka qaar lacagtaasi ka mid ah ay bixin karaan. sidaas oo ay tahay lacagta waa mid qalqalgelin karta dalka siina fogeyn karta dareenka u dhaxeeya xukuumadda dhexe iyo Turkiga iyo Qatar iyo Puntland iyo Somaliland labadaba dhaqaale ka helay Imaaraadka.
maalgashiyaas waxay saameyn dhaawac ah ku leeyihiin deganaanshaha siyaasadeed waxayna si murjinayaan xiriirka u dhaxeeya xukuumadda federaalka iyo gobolada sidaa waxaa yiri Xuseen Sheekh Cali oo ah la taliyay hore ee ammaanka qaranka. tani waa mid keeni karta mashaakil dastuuri oo al-shabaab oo kaliya ay ka faa'iidi doonaan ayuu sii raaciyay. xasarada ka caloosan khaliijka waxay sii fogeysay xiisada ka jirta Soomaaliya. xukuumadda dhexe waxay qaadatay mowqif dhexdhexaadnimo taasina waxay ka careysiisay Imaaraadka iyo Sacuudiga oo taageera Puntland iyo Somaliland. in laga baxo qaskan waa mid aad u adag ayuu yiri Xuseen Sheekh. haddii aan midnimo la helin kama bixi karno ayuu sii raaciyay. dalalka galbeedka waxay ka cabsi qabaan in qabqabsiga wadamada khaliijka ay isku haysan Soomaaliya ay gees u riixi karto dadaalkii balaayiin dollar ay ku baxday ee qaramada midoobay ay hogaaminaysay kaasoo dib loogu dhisay ciidanka militariga ka hor inta aysan sanadka 2020 dalka ka bixin ciidanka nabad ilaalinta ee midowga Afrika. mushkiladahaasi siyaasadeed ee ka dhex oogan Muqdisho iyo maamulada gobolada ayaa mid wiiqaya dadaalka ay xukuumadda ku doonayso inay ku xoojiso hanaankeeda dhaqaalaha iyo taabagelinta howlaha horyaala. xiisada ka jirta khaliijka waxaa laga dareemayaa gudaha Soomaaliya. bartamihii Abriil Soomaaliya Imaaraadka waxay joojiyeen iskaashiga militari tan iyo 2004 Imaaraadka Carabta wuxuu tababaray oo mushaar siiyay askar Soomaali oo Muqdisho jooga waxaana Puntland ka dhisay ciidan burcadbadeed la dagaalama. boqolaal hub ayaa laga bilaaqaysay xarunta tababarka ee Muqdisho markii la xirayay. tani waxay timid kadib markii ciidanka ammaanka ee Soomaaliya ay gacanta ku dhigeen ku dhawaad 10 milyan oo Imaaraadka diyaarad ku keentay si loo siiyo askarta. toddobaadkii hore saraakiil ka socotay Puntland ayaa safar ku tagay Dubai si ay ula kulmaan dhigooda Imaaraadka Carabta iyo shirkadda BO oo shirkadda horumarinaysa dekadooda. in lagu maalgashado malaayiin dollar Soomaaliya waqtigan xasaasiga waa mid muhiim noo ah ayuu yiri madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas. sidoo kale saraakiil ka socotay Somaliland ayaa waxa toddobaadkii hore marti qaaday diblomaasiyiin Imaaraad Carabta ka tirsan si ay uga wada hadlaan sare u qaadida xiriirka laba geesoodka. Soomaalida qudheeda ciyaartan sidii jarka booda ah ee Soomaaliya ay noqotay garoon uu ku socdo dagaalka khaliijka ayaa ah akhbaar xun. sidaa waxaa yiri Harry Ferkan oo professor ka ah jaamacadda Georgetown ee Qatar.